السلام عليكم أصحاب شرفت له maanta halkan waxaan ku bilaabeynaa barashada luqadda Ingiriiska qaybkeeda koowaad oo beginneriga ah janaalkan aan kusoo gudbinayno waxaa hore wax ugu soo gudbi jiray oo haddana kusoo gudbinaya ayagoo ka xasilsan oo ka horumarsan saaxiibkii Ustaad Xasan oo inta badan xisaabta aad iyo aad ugu dheereeyo. aniga waxaan bilaabi doonaa koorsada Ingiriiska sidoo kale waxaa jirta asxaab badan oo koorsada Ingiriiska soo codsatay oo adduunka meelo badan ka kala joogaan kuwaasoo ku adag tahay inay dadka luqadda kula hadlaan qaarkood ay ku adag tahay inay waxbarashadii dalalka ay joogaan ay la qabsadaan. marka shay keliya u baahan tahay waxay tahay luqadda Ingiriiska ma adko, laakiin keliya waxaa u baahan tahay inaad basic ka bilowdo step by stepna u raacdo. maana muu baahnid inaa yacni aa luqadda aa perfect ku noqotid. luqadda inaa perfect ku noqotid markaa maxaa ka wadaa yani wax kasta inay kuu saxan yihiin markaada kuwaad muu baahnid. keliya waxaa u baahan tahay inaad wixii barato, inaad dul qaadato, inaad ku celceliso iyo inaad isku kalsoonaato. maxaa yeelay haddii aan tusaale nool aan naqan lahayn wax badan aan sheego ma kasi lahayn oo keliya waxaan ilaa luqad hal barto. luqaddu waa muhiim. weligeedna waa soo dhihi jirnay ilaa Soomaaliya inay luqadda Ingiriiska tahay. Soomaaliya maxaa aan ka maxaa lahaa is the key of opportunities dhihi jirnay soomahan waa furaha fursadaha. it opens doors albaabay kuu furaysaa kanay kuu samaynaysaa dhihi jirnay. waa sax sida saxda waxaa u dareemaysaa markii aad dalka dibadiisa u soo baxdid oo aad ciddaad doonta aad la hadashid oo ciddaad doonta su-aal weydiisid. markaakis yani ha kala duwanaato lahjadaha oo yani qaabka ugu dhawaaqayso qofka yuusan ku fahmin hadduu doono maxaa dhahda iigu soo celiha ku dhaho. laakiin almuhiim inaad luqad taqaan waa muhiim. haddii aad si fiican u barato wax badan aad dhegaysato wax badan aad muraajacaysanin xitaa inaan lagu dhaho maku fahmin aad iyo aad iyo aad iyo aad u yaraanaysaa. waxaa laga yaabaa boqolkiiba hal iska dheh inuu ku dhaho maxaa dhahday ama maku maqlaan iigu celi. laakiin luqadda waxaa ugu adag inaad telefoon ku hadasho. luqad kastoo aad baranayso oo kugu cusub haddii aad si fiican u baratani waxay kaa saacidaysaa inaad ciddaa doonta la hadasho. waayo qofku markaa ku ag joogo yani afkaada u fiiri karaa, habkaa u dhawaaqaysa furgaada u fiiri karaa, listi wax badan aa caawinaya tilmaama ugu dari kartaa. laakiin telefoon markaa ku hadlayso qofku masiijkaa u dirayso waa inuu fahmaa. waxaa kala hadlayso qofku waa inuu gaaraa. soo marka noogu horeyso khalaad waa samaynaynaa normal waaye wax caadiya waaye. marka inaan qalad sameynana waa qayb kamid waxbarashada. aniga sidoo kale waxaa rabaa inaan ku cudur daarto fiidiyoyada xoogo way dheeraa doonaan taasoo keenayso isteelka ama qaabka oo aan ugu talagalin wax u baro. waayo dadka wax soo codsadeen ama dadka wax dhiganayaan ama kuwa janaalka heli doonaan ayagoo waxbarasho online ka raadinayo waxay naqon doonaan dad kala duwan. yani dad kala duwan markaa dhahay waxay tahay dad maskaxdooda ay korayso wax hore ka qaban karaan, dad iska dhexaaday iyo dad u baahan yani fahamsiis gooni ah. soo marka dib waxay noqon doontaa qofka inuu fikiro intuusan jumladii uu baran lahaa ama sentenceku uu baran lahaa qofka intuu arkin ka hor marka hore inuu qofka ka fikiri karo oo aniga afka aan ka weydii karo. then kadib qofkii asigoo wax isku dayay hadduu saxayn ugu saxay hadduu saxinne markaasi jumladii uu arko qaab noocaas oo kale. marka yani waxaan ka carraa inaan soo dhigo cashir diyaarsan oo hortiina ka muuqdo oo wixii af Soomaali lagu sheego sidee tahay yaa la dhahaa kan waa fiicana waaye kan sida inta ka imaaday Soomaaliya ka imaaday laagdaad oo kale sida Soomaaliya sabuurado oo kale wax looga baranayay same thing ayadoo ah laakiin different approach yani qaab ka duwan oo ah in qofka marka hore su-aashii meeshii firaaqaa la weydiiyo jawaabtaasi uu ka fikiro wuxuu baran lahaa kadib wixii la tuso. soo marka waxaa lagaaga baahan yahay inaad dulqaad leedahay casharada aad daawato waayo waxaan ma ahan wax oo markasta ku daba joogaayo. mana ahan harajeeni inaad maalin kuugu horey ay karta inaad barato oo first day aad macalin ku noqonayso. waqti waxbarashadu waxay u baahan tahay sabri dulqaad. waxaa ogsoontiin waxbarashada time ay qaadanaysaa laakiin timekeeda ma dheero. wax weligaa ku daba soconayna ma ahan haddii hal mar luqadda ilaa iyo heer dhexe ah si fiican u barato waxaad joogtaa heer aad iswadi karto, wax akhrisan karto, wax fasiro karto oo cid bilaadan aad ku tiirsaneen. marka lambar 1
taas rajay inaad wax kasta one day ku baranaynin oo time lagaaga baahan yahay lambar la waxaad ogaataa inaad qalad sameyn doontid taasna ay tahay wax caadi ah oo qaladku uu yahay qayb waxbarashada ka mid ah lambar 3 waxaad u baahan tahay inaad ogaatid inaad maalin kasta qasab u tahay inaad luqadda practice gareysid 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo Allah ka dhigay taasna inay qasab kugu tahay inaad ogtahay waaye hana ka xishoonna luqad ku hadashid taasna sidoo kale muhiim ay ku tahay kalsoonida aana ka muhiimsan inaad luqadda khatar ku noqoto dad badan oo luqadda khatar ku haajinaano يعني wax aqri karaan wax fahmi karaan haddana aan hadli karin oo aan isku kalsoonayn oo afsanayaan dadka mid kula yaaban ama qalad samaysaa dad uma noolid wixii afkaada ka soo baxo sheeg waxaa kali kartid waxaa qaladid beriyaa saxe beriyaa qof hagaagsan noqonaysaa laakiin maanta wax isku day oo hadal hor u socda okay sidoo kale marka maxaan dhahnay luqadda ingiriiska marka ka hadlaynay oo anaga caadi Soomaali ahaanta isku naqaan maxaan dhihi jirnay luqadda ingiriiska fursado badan ay ku furaysaa dhijina Soomaaliyan fursadaha nolosha ku siinaysaa waa sax waayo haddii aad adduunka meesha doonto ka tagto oo meeshii luqad ingiriis looga hadlo hadda tusaale ahaan kale dad waxaa jira Ameerika aan joogno ku nool haddana basic life ka noloshooda aan ka hadli karin marka qof basic life noloshiisa aan ka hadli karin see macquul ku tahay inuu markaasi dad la xiriiro oo dad oo yani oo jaanisyo ka helo waxay noqonaysaa shaqooyinka ugu liito inaad ka shaqeysid ay dadku ugu liifaysaa maxaa yeelay dadkii ma fahmi karin marka waa inaad shaqo aad la helin waa inaad heshaa waa inta badan shaqooyin xamaali inaad heshaa waa oo aan luqad looga baahnayn inta badan waa inaad heshaa shaqooyin aan customer ama dad aan lala dhiilgareynin oo aan lala hadlaynin waa inaad heshaa waa okay xamaalina cid ka taajirta ma lahan sida aan isku wada waafaqsannahay haddii qofku uu rabo inuu horumar sameeyo hadduu doonayo qofka inuu horu socdo hadduu doonayo qofka inuu adduunka jaanisyo ka helo waa inuu luqad yaqaanaa okay balanna waxaa ugu xun balanka bax aan leeyahay waxaa ugu xun balan aan naftaada ka qaado waa ugu baxda waayo naftaada waxay aaminaysaa inaad waxba samayn karin inaad waxba qabsan karin inaad qof horu socdo aan naqan karin marka taasaa waxay keensanay inaad naftaada aad heer gaari weyso oo shay kastood ku fikirto inaad ku tilaabsato ay nafta kaa celiso shaqo fiican inaad heshaa u baahan tahay meel kasta maxaa yeelay luqadda ingiriiska furihiya kaa maqan inaad wax barataa u baahan tahay ma baran kartid maxaa yeelay luqadda ingiriiska kaa maqan dadna la hadashaa rabtaa lama heli kartid maxaa yeelay luqadda aad kula hadleed ma heshid Soomaaliya maxaa dhihi jirnay markii la isweydiiyo faa'iidada luqadda ingiriiska ka hadal maxaa dhihi jirnay is the key of communication waa furaha oo communication wada hadalka waa ogsoonaa wax kasta waa ognahay laakiin cajsiga wax ka samayn karin maxaan dhihi jirnay more opportunities aan siinaysaa fursado badan way saxan tahay yacni markii laga hadlaayo fursadaha nolosha ama haddaan rabno inaan nolosheena aan bedelno ingiriisku way bedelaysaa yani dhan adduunka u fiirino waa way bedelaysaa horumarkeena ka qayb qaadanaysaa adduunka inala xiriir noqonaysaa inaan yani aan business aba yani barnaamijyo kala duwan ka soconayo oo hal abuur la aan sameynay keensanaysaa waxaas oo dhan si aan u gaarno waxaan u baahannahay inaan naqaano luqadda Englishka saa daraadeed marka hadda inta waxaan ku bilaabay luqadda Englishka qaab waxay noqon doontaa oo ku salaysan markaas inuu qofka inta badan wixii ka fikiri doono waxaan u fikiray qaabka qof alaala qofkii niyeysta inuu luqadda Englishka barto muddo kooban uu ku baran karo akhriska ku baran karo qoraalka ku baran karo yani akhrinta oo ku baran karane hadalka taasoo qofkii dadaala ee waqti geliyaan aysan dhici doonin inuu waqtigiisa u shalaayo oo uu dhaho waqtigii halkaan iga galay waa ku khasaaray uusan dhihin okay sidoo kale waxaa ogsoonaa markii luqad soo baranaya jaalanjiyadeeda leedahay sidoo kale waxaan aqaanaa anigoo aan soo bartay luqadda Turkishka hadda waxaan rabaa inaan barto luqadda Isbaanishka oo ahayd sanadkan inaan barto hadda dhamaanaya 2025ka oo aan baran waayey maxaa yeelay naftikeyga waddan cusub joogaa jaalanjiyadiisu leeyahay waayo luqadda Isbaanishka meeshan waxay ka tahay luqadda labaad oo kaleeto marka sanadkan wax markaad baran weyso ama aad sameyn weyso haddii aad cudurdaar u haysato way fiican tahay oo naftaada yani qiil hadday u haysato oo qiilna macquulna uu yahay tusaale kaleeto waddankaan imaaday sanadkii ugu horeysay يعني I was struggling with life نوشان لحربناي ولا حربناي ولا حربناي صوبتنا حتى هاي قف ودك كان جوجو
dhalinyaro ah hadda soo galay yani garab aan haysan u baahan inuu nolosha cagiisa ku istaago waa ogsoontihiin jaalanjiyada iyo adeeg ay ku qaadanayso lambar 2 yani sanadkii koowaad markii aan warqadii shaqada helay oo ahayd inaan luqadda Isbaanishkii yani sanadkii koowaad oo aan helay luqadda Isbaanishka sanadkaas ma niyeysanin because maxaa yeelay intii aanan ka soo bixin dalkii aan joogi jiray ee Turkiga ayaa waxaa dhacday last minute ugu dambeeyay May 15 waxaan helay يعني سوق فوركس وأنا كده أرتي جري علمي سو صح مركز عم برتو ICT مثل اللي يرادو إنه نين مرة كان جرو أو ICT اللي يرادو ICT free كده everything مركي أنا أبادي May 15 May 25 نه تركي قاعد صباحي so May 14 صباحي على بركة كده في واي 15 كي أبرتي عشان دي ساعة عليك then May 25 قاعد كسر تقدر كتركيا marka kasoo tagay wadankan imaaday alxamdulilah markaa imaaday sanadkii weyn nolosha la xarbinayay sanadkii labaad oo 2024ka yani dhexdiisii markaa helay oo 24 bilowgiisii January shaqa bilaabay January 6 ilaa hadda oo 2024 uu dhamaanay waxaan sameeyay horta koorsadii ICT ka dhex baxay ICT markaa ka dhex baxay markii ay hadaan u fadhiisto oo aan muraajaceeyo oo yani every morning aad trade ku qaato another decision aan gaaray oo ah more skills markaa leedahay maxay kaa caawinay inaan more income leedahay so my background nolosheedu ugu horeysay Soomaaliya dadkii yaqaan hotel saxaafad dhawrkiisa dambo waxaan ka shaqeyn jiray garaash ka shaqeyn jiray macalinkii Faisal haddii jaanis video aan ku maqlo dadka ay u sheegarayaan Faisal باورت هو ميد الوسم من جدال باورت عن وجود ضغط السحاب ده كيس تنبه ماشي عكس شقي جري مركا ما دام شغال مكان يجيب لونات وده كان عندي جنوم مريكان كان إجانس في حاجة مكانية سو وحني يستمكن مكان يجيب برتو وعن رمايو سكول أسكا خرين سكول كمرك ويكلي ليست هذا السوق سنة إيه لو بلاد لا سنة أبل بلاد وإلى تبغى السوق سو ما كحاس ده أنت سوق عن خورك سافر يصلحت هرن أتوقع جري سوق عن oo riskiisa yani uu yahay 50-50 oo maalin la hela maalin la waayo uu yahay soo waxaan yeesta marka inaan skill kala barto si markaasi laba skill oo wadankan dhaqaale fiican uu sameyn karaan leeyahay mid kooda trading kan labaadna waa mechanical trading kana waxaa jiro yani mid la yiraahdo stocks in la trade gareeyo hold iyo sugitaan iyo mid la yiraahdo buy and sell oo inaad waxa gadato iska iibiso oo stock liftiisa ama forex-ka iyo mid waxaa jiro futures la yiraahdo oo xaraan ah marka futureska aad u lacag badan yahay maalinkii 2003 ka sameey kartaa laakiin culimada xaraan way riba ku jirto taas way taasni xogo maadaama quick money oo aad u badan aan laga helaynin oo forex-kan in la dhiso ay time u baahan tahay compounding waxa la hayo in akoonka iyo business bilaabo dhisto ay u baahan tahay soo waxaan yeestaa marka another source of income inaan sameysto taasna waxay aqli ugu noqotay mechanical marka mechanical aan garaash Soomaaliya ku practiceynayay oo macallin asigana Jaanis Sharif hadda inta joogo oo sidoo kale magaciisa caan ku yahay maxaa la yiraahdaa Abdallah sin khayr la siiyo garaaskiisa aaday ilaa tan waiting list ku jiraan soo marka anigu aad waiting list ku jiro marka waxaas la shaqeynaa Spanish wadankan Spanish luqadda maadaama ka tahay aan u niyeysana luqadda Spanish la barto marka sanadkan iyadoo marka culeyskeedii wadatay ICT-ga ka dhex baxay أيضا مكانك أكون سيكون بالعربي يعني هلا بدنا كلام كوفي كرايو إسبانيش كم كوفي ديرواي لكن حتى سنة كان الله 2026 إن اللغة إسبانيش كان كتر عربها هذا ولاية على كندا ما كنت فاهم كم شيء جاي سو نلاش مركز توح برشة ما دمعته هردن كم دمعته أورد كم دمعته سو محاول بهانته مركز محاول بهانته أنا صبرته وحلا لو حابر ناس وقت أجلس وتكرون شيكته سيدا كلته تبضن يعني حاجة حلوة عن financial markets أو language of financial markets يعني سوقنا نقالة لغة كوهلا لغة دوغان waa candlesticks waa charts kaas meeshan ugu sheekay doona si markaasi ayada naftigeeda anagana cilmi badan oo ay kordho dadkan wax iga faa'iidaan dadka rabaan inay basically ayana suuqada online soo galaan oo inta ugu soo furmo soo marka insha Allah ilaahay janaalkan waxaan noqon doonaa janaal wax badan ku kala faa'iideysano dad badan oo idinkeena kamid ah waxaan rajeynayaa inuu janaalkan caawin doono wax badan ka baran doonaan
marka intaan muuqaalka xigo oo cashirkooda ku bilaaba aan kula kulmayo waxaan kaga tegayaa horumar iyo caafimaad.